booliiska deegaanada koonfur galbeed ee dalka Norway ayaa gacanta ku soo dhigay 2 wiil oo dhalinyaro ah kuwa oo uu sheegay in aysan weli qaangaarin. Waxa ayna booliiska labadan wiil ku soo eedeeyay in ay abaabulayeen oo ay isku dabaridayeen falal khatar ku ah amniga iyo xasiloonida shacabka Norway. Booliiska ayaa sheegay in labadan dhalinyarada ah ay aaminsan yihiin in ay galeen heshiis ay dambiye waaweyn kaga geysanayaan goobo ka mid ah dalka. Waxa uuna intaa ku daray in ay gacanta ku dhigeen qalab ay isku abaabulayeen sidii ay faldambiyada culus uga geysan lahaayeen qaybo ka mid ah dalka Norway. Waxa uuna war-saxaafadeed ku sheegay booliiska in aysan hadda wax faahfaahin ka bixin karin oo ay baaritaanadu weli socdaan. Hay-adaha dambi baarista iyo booliiska ayaa ilaa iyo hadda ka gaabsanayo in ay cayimaan goobaha ay wiilashani qorsheynayeen in ay faldambiyadani culus ka geystaan. Qareenka booliiska Else Lokna ayaa ku waramayso in aysan hadda wax faahfaahin ka bixin karin maadaama kiiska baaritaankiisu uu socdo. Waxa ayna intaa ku dartay in ay hadda baarayaan in uu jiro xiriir ka dhaxeeya wiilashan aan qaangaarin iyo weliba shabakadaha dambiyada ee waayadan kusii kordhayeen guud ahaan dalka Norway iyo dalalka Scandinavian-ka. Ujeedada ayaa ah in ay baaritaan dheer ku sameeyaan xiriirka ka dhaxay kara wiilashan dhalinyarada ah ee abaabulka badan ugu jiray sidii ay faldambiyado aad u waaweyn uga geysan lahaayeen gudaha dalka Norway, iyaga oo isu qalabeeyay, isuna abaabulay, isuna ballansaday in ay faldambiyadaas ka geystaan goobo kala duwan oo dalka ah. Arrintan ayay booliisku sheegeen in ay baaritaan xoogan ku wadaan, si taalamidana laga yaabo in loo soo qabto dad kale oo ku lug yeelan doona marka wiilashani la wareysto. Halka wararka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.